saddexda baabuur ee subaxii hore laba soo gudubtay midna galabtii soo gudbay saddexdu buundadaasi ka soo gudbeen labada dhinacna waxa ka jooga ciidan askar baa ka joogta بوليس ayaa laba dhinac ka jooga taliye qaybta booliiskan ku yiri ruuxani maxay yihiin ilaa hadda qof loo xiray ma jiro dambiga inta leeg qof xil iska saaray ma jiro xitaa wuxuu ka baaqsaday markii labada shil ee hore dhacday inuu tilaab ka qaado oo buundada uu tago oo labada buundo abligooda xajiyo ayaan farnay mana ku amal farin waxa kale wax laga naxa oo wax la yaab la qaybta nabad sugidda in aan qaraxa baabuurka ku warhalo jugta inaan ku warhalo oo qaraxa inta la eg taliye qaybta booliiska muxuu ahaa nabad sugidda halkan joogay wax oo hay'adii sirdoonka ee la rabay waxa dambiyada dhacaya intooda badan ee laga hortagay la fashilinayo xogta waxa keenay waa nabad sugid haba yaraatee wax xil iyo wax shaqo askarina waa joogtaa meel askar la'aan uma jirto waxaan filayaa 90 askari miya ma askar inay gaaraysan u malaynay ayaa nabad sugidaha joogta kuwana dhowr boqol oo askari dhowr boqol oo askari booliiska waxaan dawladda Soomaaliya ka codsanayaa labada sarkaal in hoos loo fiiriyo mas'uuliyad darrada meesha ka dhacday waxaana ku eedeysan oo falka meesha ka dhacay mas'uuliyadda dusha ay ka saaran tahay labada taliye qayb waa ka nabad sugidda iyo qaybta booliiska geedka raqaga waxa maxkamad lagu saaray hadda ka hor saraakiil 1984 ahayd waxa dagaal ka dhacay meesha la yiraahdo Cali Shiino oo degmada Matabaan kaga beegan dhinaca galbeedka ayaa waxa ka dhacay dagaal waxa la jabshay ciidankii Soomaalida laglajansa ka timid saraakiisha ayaana ciidanku ku jabay shan sarkaalaha maxkamad lagu saaray meesha waana la toogtay haddii ciidanku laglajansa taliyaha ka timid oo jab ku gaaro koodisha binaale xeerka cinqaabta ama buuga ciidamada markii la yiraahdo dil toogasho ciidan baa halka ku dhintay wasiiraa ku dhintay maamulka madax kale maamulka gobolka ku dhimatay dad shacab ku baabay saraakiil ciidan baa ku dhimatay mas'uuliyadda dadka cidii iska leh in guddi baaritaan la soo diro xeer ilaalinta qaranka in la soo diro ayaan dawladda Soomaaliya ka codsanayaa xeer ilaalinta qaranka in la soo diro oo dambiga meeshaan ka dhacay uusan noqon dameer ku haraati uusan noqon ee cid loo soo diro ayaan codsanayaa